بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبي محمد وعلى أصحابه وسلم. باور aan ula jeedo xasan sheekh oo hadda meeshii ku guuleystay inkastoo haddaanan isku mabda ahayn oo hadda kolley baan una xiranahay inkastoo hadda aan maaragtay waxyaalahaas asaguna hadda cafiska oo sheegay aniguna hadda anigu horena aan u cafiyay hadeerna aan ku darahayo laakiin waxa weeyaan ma ahan oo arrintu ma ahan guulaysi oo mansabkaas aad ku guulaysato keliya ma nooca waayalaha waa iska fiican tahay laakiin waxa weeyaan waa hawsha kuu taala haddaad ka soo baxdid aad rag tahay waay waxyaaba hore waa jirjireen laakiin hadda hawlo waaweynaa ku yaala meeshii aad maaragtay qabyo dhihi jirtay ninkeedaa kamila hadda ilaahay waa kugu soo celiyey waa fadli ilaahay laakiin inaad adigu fadli ku tacbato kale ayaan kugula talinaya marka saddex arrimoodoo waaweyn markii laga reebo soomaalida sida caadigaahi saddex arrimoo waaweyna ayaa meeshaan taala saddexdaas haddaad ku guulaysato ama wax kaga guulaysato nooc raganimo wa midda ugu horreysa waxa weeyaan waad og tihiin kulligiin oo 60kii ayaa ilaahay laga goostay 60kii ayaa ilaahay laga goostay baarlamankii hore ayaa ka goostay oo yidhaahdeen annagu ilaahay diintiisa kuma dhaqmi karno kiiskaasu marka waa kiis oo khatara oo noo yaala oon weli ku cadaabanahay ilaahay subxaanahu watacaalana haddii mar diintiisa laga leexdana cadaabku waa soconaya haddaad nin raga tahay kiiskaas ilaahay u soo celi nin raga haddaad tahay waa aadan madoobena waxa weeyaan waa firiin waa u diray adigana waa kuleeyay kiiskaas haddaadan soo celin waxa aad sheegayso cidina abaalna kaagama haynayso ilaahayna waxaa laga yaabaa meeshii oo abaal lagu hayn lahaa in ilaahay kugu cadaabana waa dhici karta haddaad nin tahay kiiskaas soo celi adiyo aadan madoobe iyo raggiinaas kiiskaas ummaddii iyo ilaahay isu soo celi kiiskaa ummaddii iyo ilaahay isu soo celi midda labaad waxa weeyaan nimankaas aad maaragtay aad magacyada u bixbixisaan waxa un kolleyba asalka waxaa dhici karta khaladaad waa dhici karaa laakiin asalku waxa weeyaan waa diintaas ilaahay oo laga tegaan soo celinaynaa waay nimankaas marka waxa weeyaan yacni magacyadu waxba ma taraayaan magacyo amerikaanka wax uga qaadi waayey ayaga iyo afghanistan iyo qaacide iyo waxba waa looga qaadi kari waaye ninkuna mar hadduu isleeyahay xaqaad ku taagan tahay waxa weeyaan mar loo maaro helaayo macaayuna waxba kama tarayso waxna idinma tarayso soo maaragtay ugus iyo waxaas waxba kuu tari maayaan raggaas markii qaabkii aad maaragtay loola heshiin lahaa oo hadda mabaadi'a waaye mabaadi'a lagu heshiinaya xasan waa kuu sheegaya caqligu yow kaa dhumin waa dawladiid warkaas sax maaha waa dawladiid warkaasu ma jiro xasan soo ma ujeeda waxa weeyaan nimankaasu dawladay rabaan dawlad islaamay rabaan laakiin waxay maaragtay yacni ma diidaayo bani aadamka o dhan maa qaladaad sameeya iyo jabhadahoo dhan waa saas waay laakiin kiisku waxa weeyaan manhajigaahi waxa weeyaan ilaahay diintiisii in dalkan loo soo celiyay doonaya nimanka ee waxa weeyaan kiiskas qaabkaas u gal heshiisna ka raadi haddaad nin tahay ay maaragtay kiiskaa ku guulayso waxaa kaleeto kiiska kaloo weyn waxa weeyaan waa kiiska reer waqooyiga wa somaliland iyo waxaas anigu ma jecli magacaas magacii isticmaarka ma jecli aniga isticmaarkii magaciisi ma jecli in magac laga doonana ma jecli laakiin waxa weeye hadda adduunku waa saas waaye xataa suudaanta baha koonfure iyo waqooyi waa caadi waay jarmalka maarata kuwii bari iyo kuwii galbeed waxaa la yaqaan waay magacyada maaragtay yacni magacyada asalka ayaa ka fiican magacyada magacyada oo isticmaalka magacyada asalkaa ka fiican
waqooyi dheh haddaad rabtid koonfur dheh haddaad rabtid waa magacii aan isu naqaanay waayo kulligana laakiin raggaas maaragtay kiiskoodii haddaad ku guulaysato tan ragaad qaabka aad maaragtay u maalucaysaana aniga ma jecli qaabka si saxa oo cilmi ah in loo galaa la rabaa si saxa oo cilmiya in la isugu tagaa la rabaa si saxa oo cilmiya in la isula xaliyaa la rabaa si heshiisa in la isula xaliyaa la rabaa kiiskaas marka haddaad ku guulaysato ragaa tahay haddii kale deed meelahaad warwareegi jirteen ku warwareega soo ma jeedid marka arrintaasu marka waa saas waay arrinta kale oo waxa weeyaan oo maaragtay deed cumuumkaahi waxaa jirta bahalkii maxay ahayd arrimo aan anagu aan idinku haysanaa jirta arrimo isku haysanaa jirta haddeerna wararkiina ka muuqda soo ma jeeda kiini hadlaaba oo magacaad oo arrintaas ay ka muuqato waayo waxa weeye qadiyadaan lahayn oo maaragtay dalalaa naga maqnaa oo dadaa naga maqnaa soo ma jeeda dagaalo iyo aan usoo galnay wax maaragtay macnale oo heshiisahoo laga gaarayna male adinkaa marka waxa weeyaan tanazul idinka muuqda kiiskaasna waxa weeyaan waa kiis noo taagan waay kiis noo taagan waay markaa deed wax la isku og yahay waa gaar waaye laakiin annagu waxaan idiin haysanaa inaad xaggiina in tanazulku ka yimid tanazulku inuu xaggiina ka yimid aan dareemayna qolyihiinaan issharsharaxayna xataa waa ka dareemayna kulligii waa ka dareemayna soo ma jeedin adiguna soomaaliya heshiisa dal heshiis waxa lagu heshiina maxay yihiin wax lagu heshiiya waa inay jiraan oo la yaqaano ummaddu ay wada taqaano waa soo ma jeedin marka kiisaska intaasaan rabay inaan maaragtay inaan kusoo gudbiyo waxa weeyaan waxaan bahalkii maxay ahayd allah sahlo wax dhihi karnaa allah idin hanuuniyo waa dhihi karnaa allahna wada hanuuniyo waa dhihi karnaa allah isku kaaya si maaragtay bahalkii maxay isu kaaya soo celiyo waa leenahay waa ku ducaynaynaa laakiin kiiska ficlan u baahan oo khatarkaahi waa arrimahaas waayo ma afar ka dhig ama saddex ka dhig khaasatan yani saddexdan gudaha iyo midkaa dabadda marka heshiisyada waa in la yaqaan waayo maxaa lagu heshiinaya heshiiska maaragtay bahalkii maxay ahayd BLO iyo Israa'iil muxuu taray waxa weeyaan waa heshiis aan macno lahayn oo hal dhan tanazula waayo oo dacfiga laydinkaga faa'iidaysanayo baynamaa maaragtay anigaba waa lay weydiin jiray maxaa qadiyada naga dhaxayse waxa weeya waa ka wada hadli karnaa waana maaragtay bahalkii waana nala dhex geli karaa laakiin qadiyadan aniga waktiga dacfiga in nala kaga faa'iidaysta ma ogolina dhihi jir soo ma jeedid marka haddeed waxa weeyaan guushaan oo madaxtinimo in lagu doortaa anigu guul uma aqaano ee kiiska inaad ku najaxdidaa guul gaabkaad ugu najaxaysana waxa weeyaan markii laga reebo maaragtay dhaqaalihii markii laga reebo maaragtay dadki isku dugudoodii markii laga reebo waxaasoo dhan waa yaalan sax waaye maaragtay gobolladii iyo wixii o dhan in la isku duwo sax waaye laakiin waxa ugu darano waxa weeyaan waa meeshaan waaye ilaahay subxaanahu watacaala in lala heshiiyo marka hore kadibna maaragtay ummaddii la heshiisiiyo